barasaabka gobolka Gabiley iyo maayirka magaalada Gabiley ayaa maanta waxa xarunta looga arrimiyo gobolka Gabiley shir kula qaateen taliyayaasha ciidamada booliska asluubta qaranka sirdoonka gudoomiyaha baanka isuduwayaasha laamaha dawladda gobolka. Shirkani oo ay warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa waxa lagaga hadlayay sidii la isku waafajin lahaa xuska 18 May iyo bisha barakeysan ee Ramadaan oo isku soo beegmay. Markii uu shirkani soo gabagaboobay ayaa waxa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Gabiley duqa degmada Gabiley iyo barasaabka gobolka. Ugu horeyn maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa halkaasi ka hadlay waxana uu gudiyada xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Gabiley ku booriyay in ay ciidamada ammaanka la shaqeeyaan. Waxa kale oo ka dhawaajiyay in tartankii Quraanka Kariimka ah ee Ramadaanta la qaban jiray la mideeyay oo meel kaliya lagu qaban doono qofka kaalinta koobaad galana gaari la gudoonsiin doono. waxana uu yiri kan wuxuu daaranaa in sidii Ramadaanta bisha khayr kalena loogu diyaar garoobi lahaa isla markaana looga tashan lahaa sidii loogu diyaar garoobi lahaa inay si qiimo badan oo sharaf leh oo nabadgelyo ah ay noogu dhici lahayd maalinta qarnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland xuskeedu. waxaanu halkan runtii jecelahay inaan dadweynaha reer Gabiley aanu baaq uga dirno oo ah in iyaguna dhinacooga ay u diyaar garoobaan xusitaanka maalinta qiimaha badan leh oo ay bilicda kor u qaadaan. qodobka labaad ee runtii aan raacayna waxa weeye bishii barakeysneed ee Ramadaan baynu iyadana gelinaa. bisha waxa la qaban jiray tartan Quraan. tartanka Quraanku laba masaajid buu inta badan ka dhici jiray. ardayda xufaada ah ee ku tartami jiray tartanada Quraanka ah waxaanu halkan ku wargeleynaa in tartankii Quraanka la mideeyay oo hal meel lagu qaban doono sanadka hadii Ilaahay qadaro. goobtaasina waxay noqon doontaa masjid jaamac imadu ay soo diyaariyeen ba qaban doona. waxa kale oo ugu bushaareynaa in ardayga kaalinta koobaad gala lagu abaal marin doono gaari. barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. shirkaas oo maanta iskaga wareysanaynay laba arrimood oo ah in uu diyaar garowga in xuska 18 May iyo bishii barakeysneed ee khayrka qabtay ee Ramadaan oo iyaduna soo gashay. runtii labada munaasabadba waa laba munaasabad oo ah tii qaranka iyo tii Ilaahay inagu lahaa labadaba. runtii labadaba waxaynu doonaynaa inaynu mid walba waajibka ay leedahay inaynu marino oo dhinaca cibaadaadka iyo akhlaaqiyadka inagu gudanayna aynu haddana qaranimadeena iyo waajibkii in la saarnaa aynu iyadana runtii iyaduna aynu bogaadino si qurux badan aynu marno. taliyaha qaybta booliska gobolka Gabiley gaashaanle sare Axmed Saciid Maxamed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa shacabka ku nool magaalada Gabiley ugu baaqay in nabadgelyada meel looga soo wada jeesto. waxana uu yiri marka waxaan rabaa inaan halkan ka faro ciidanka nabadgelyada khaasatan booliska il weyn baa u yaala nabadgelyada oo dhan iyaga laga sugayaa iyo ciidamada kaleba inay munaasabada qaybtooda ka qaataan oo ay maraan waa laga sugayaa oo ay sharciga waafajiyaan meelaha xaaraanta lagu kariyo lala dagaalamo sharcigana la hor keeno iyadoo la kaashanayo culimada diinka khilaafaya bisha barakeysan. si kastaba ahaatee shirkani ay mas'uuliyiinta gobolka Gabiley ay isugu yimaadeen maanta ayaa maalmaha dambe sii socon doona. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin wararka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.